Maraykanku waa mid ka mid ah wadamada ugu dhulka ballaaran dunida. Baaxadda dhulka Maraykanku waa 9,834 kiiloomitir oo isku wareeg ah, waana mid ka mid ah wadamada ugu badan ee dadka ka soo guura daafaha caalamku ay degaan. sidaa darteed waa wadan cosmopolitic ah. dhaqan ahaan waa wadan ay ku nool yihiin dad leh dhaqamo kala duwan oo aad u fara badan. Maraykanku wuxuu leeyahay 50 gobol, waxaana intaa dheer in nidaamku dalku uu yahay mid federaal ah. sidoo kale waa wadan xor ah oo dadka ku nool dhammaantood ay leeyihiin xuquuq isku mid ah. waxaa lagu sheegaa wadanka ugu xurriyadda badan, laakiin sida caadiga ah dadka madowga ah ayaa lagu cunsuriyeeyaa. Maraykanku waxa uu ku yaalaa qaaradda Ameerika, juqraafi ahaanna dhanka galbeedka waxaa ka xiga badda Atlantic ilaa badda weyn ayuuna ku fidsan yahay. waqooyiga waxaa ka xiga dalka Canada, dhinaca koonfureedna waxaa ka xiga dalka Mexico. dhanka kalena waxa uu xiriir la leeyahay gobolka Alaska, sidoo kale gobolka Hawaii kaas oo ku yaala badda weyn, wuxuuna ka kooban yahay gobolkani jasiirado, mana lahan luuqad rasmi ah, laakiin dadka intiisu badan ee Hawaii ku nool waxay ku hadlaan luuqadda af Ingiriisiga ah. luuqadda labaad ee ugu badan lagu hadlaana waa Isbaanishka. Maraykanku diinta ugu badan ee laga rumaysan yahay waa Masiixiyadda, waxaa ku xiga Katoliga, Ortodokska iyo Protestanka. 3 meelood meel dadka Maraykanku waxay raacsan yihiin madhabka Katoliga. inkastoo uu yahay wadan Kirishtaan ah, haddana waxaa ku badan dadka ateesiska ah. sidoo kale waxaa wadankan ku nool dad Yuhuud, Buddhist, Muslimiin iyo Hindu, iyo dad haysta diimaha kale sida paganismka. taariikhda casriga ah ee Maraykanku waxaa lagu sheegaa inuu helay Christopher Columbus sanadkii 1492, laakiin dood ayaa ku jirta arrintan. si kastaba ha ahaatee, muddo dheer waxaa lagu magacaabi jiray dhulkaasi qaaradda cusub. qaaradda Ameerika waxaa intaa kadib soo degay dad badan oo ka yimid Yurub sida Isbaanishka, Boortaqiiska, Faransiiska iyo Ingiriiska oo dhul ballaaran ka iibsaday halkaasi. magaalooyinka Boston, New York, Philadelphia, Washington iyo gobollo kale ee Ameerika waxay noqdeen magaalooyinka aasaaska u ahaa dalka Maraykanka. Ingiriisku waxa uu Maraykanku ku lahaan jiray dhul ballaaran, laakiin waxaa la dagaalamay dhaqdhaqaaqii xornimadoonka u ahaa ee Maraykanka. George Washington wuxuu ku dhawaaqay xornimada Maraykanka 4 Luulyo 1776, isagoo ku dhawaaqay in Ameerika ay tahay wadan madax bannaan. heshiiskii Paris ee 1783 waxaa lagu aqoonsaday madax bannaanida Maraykanka, waxaana si rasmi ah Maraykanku loo aasaasay sanadka markii uu ahaa 1787. Maraykanku waa wadan ay xeebo ku hareeraysan yihiin. kala duwanaanshaha ay leeyihiin cimilada iyo dhirtu waa mid aad u ballaaran. qaybaha bari iyo galbeed waxaa ku hareeraysan buuro, taasoo saameyn yar ku leh cimilada xeebaha. agagaarka cimilada webiga Mississippi markay yihiin goobo cagaaran. dhanka koonfureed ee gobolkuna waa dhul qalalan. gacanka Mexico iyo gobolka Hawaii-na waxaa ka jira cimilada kulaylaha tropikalka ah, halka Alaska ay leedahay cimilo qabow oo aad u daran, laakiin dhanka xeebuhu ay xigaan waa cimilo dabacsan. Maraykanku wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka, maalgashiga ugu badan ee caalamka ayaa lagu sameeyaa halkan. dhammaan wadanka waxa uu ku tiirsan yahay ganacsiga gaarka loo leeyahay oo kaalin weyn ku leh dhaqaalaha Maraykanka. sidoo kale waa wadan ku horumarsan dhinaca tiknoolajiyadda iyo shirkadaha. Maraykanku waa wadan ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo qiyaastii 330 milyan oo qof ah. waxa uu ka kooban yahay 50 gobol oo federaal ah. waxaa sidoo kale jira 5 gobol oo gaar ah. magaalooyinka ugu dadka badan waa New York, California, halka ay caasimadda Washington ay tahay xarunta dawladda. Washington waa magaalada ay ku taalo aqalka cad oo ah xarunta maamulka Ameerika. aqalka cad waxa uu ku fadhiyaa dhul 5,100 mitir oo isku wareeg ah. waxaa sidoo kale ku yaala guriga madaxweynaha. New York waa magaalo weyn oo caan ku ah taalada xorriyadda oo uu Faransiisku hadiyad ahaan u siiyey Ameerika. dhererka taaladu waa 93 mitir, waxay matashaa 7 qaaradood ee dunida. magaaladu waxay leedahay dhismayaal dhaadheer sida Empire State oo leh 102 dabaq. Central Park waa goob lagu nasto oo leh dhir, barafka lagu cayaaro iyo dalxiis. buundada Brooklyn waxay isku xirtaa Manhattan iyo Brooklyn oo ku taala webiga River. Brooklyn waa magaalo qurux badan oo loo dalxiis tago.
Los Angeles gaar ahaan Hollywood waa magaalo laga helo filimada caanka ah iyo xafiisyada shirkadaha filimada soo saara. Arizona waxaa ku yaala Grand Canyon oo ah dhul dhagax weyn, dhererkiisu waa 90 kiiloomitir, waxaana laga heli karaa noocyo badan oo dhir iyo xayawaan ah. San Francisco waxaa ku yaala buundada Golden Gate oo ah astaan taariikhi ah. Waxaad arki kartaa jasiiradaha Angel, Alcatraz marka aad kor u fuusho. Montana waxaa ku yaala Yellowstone National Park oo ah beerta qaranka. Waa dhul ka kooban 900 hektar ah. Waxa uu ku yaalaa Yellowstone National Park oo ah beerta qaranka. Waa dhul ka kooban waxaana ku yaala biyo-dhacyo, waxaana ku nool xayawaano. Nidaamka waxbarashada ee Mareykanku waxay ka bilaabataa da'da 6 jirka. Waxbarashada dugsiga hoose, dhexe iyo sare waxa ay socotaa 12 sannadood. Ardayda dugsiga sare kadib waxay aadi karaan jaamacadaha ama college. Jaamacadaha ugu caansan ee dunida ayaa ku yaala Mareykanka sida MIT, Stanford iyo Harvard. Dhaqanka cuntada Ameerika waa mid ku tiirsan fast food. Gobolka Texas iyo xeebaha California waxaa laga heli karaa cuntooyinka maxalliga ah. Gobollada koonfureedna waxaa laga heli karaa cuntooyinka dhaqanka Afrika ee sida soul food oo laga sameeyo baradho la shiilay iyo hilib iyo ukumo.